Bismillahirrahmanirrahim kulan wacana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn warbaahinta walwal qodobada ugu darkarona waxa qayb ka musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka Hirshabelle oo maanta jeediyay khudbadahoodii loogu talagalay xilli doorashada maamulkaasi ay hal dhinac u badan tahay Soomaali xatooyo ka geysatay jasiiradda Malta oo maanta la maxkamadeeyay howlgalku waa uu soconaya ilaa inta hubka laga dhigayo dambiilayaasha yaa sidaas yiri waa daawan doontaan daawadayaal codadka gobolada qaar ee dalka Mareykanka oo dib u baaris lagu sameeyo haddaba maxay tahay baarista lagu sameeyo codadkaasi xilli madaxweynihii hore ee dalkaasi uu walwal xoogan uu qabo una ka qabo doorashadii dalkaasi ka dhacday oo uu ku guuleystay Joe Biden Japan oo sanad ku dartay howlgalkeeda la dagaalanka burcadbadeeda Soomaalida madaxii Falastiin ee wada hadallada Israa'iil oo geeriyooday ra'iisul wasaaraha Armenia oo sheegay in Azerbaijan ay la gaareen heshiis nabadeed oo xanuun badan haddaba maxay tahay sababta xanuujinaysa waa daawan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale oo idin hayna ayaa daawan doontaan ee ku soo dhawaada warkaas oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle waxa ka bilaabatay hadal jeedinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xilli doorashada maamulkaasi ay hal dhinac u dhacday qabanqaabadii ugu dambeysay ayay maalmihii ugu dambeeyay wadeen mudanayaasha baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ku shirayay iyadoona halkaasi ay xildhibaanada cusub ee maamulkaasi ay ka dhageysteen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee maamulka Hirshabelle barnaamij siyaasadeedkooda ee musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa xilka madaxweynaha ilaa iyo hadda waxa isku soo taagay Cali Maxamed Xuseen Aguudlaawe iyo Cabdiraxmaan Jimcaale Cismaan halka madaxweyne ku-xigeenna ay ku tartami doonaan Yuusuf Axmed Xagar Dabageed iyo Maxamuud Cabdulle Maxamed Dheere oo hore u soo noqday wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabelle maalinta bariya oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha November ayaa la filayaa in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada oo si weyn isha loogu hayo taas oo inta badan ay siyaasiyiinta qaar aad u hadalhayaan inay hal dhinac jirto iyagoona halkaasi dhinac ku sheegay in musharax ay dawladda dhexe ee Soomaaliya ay wadato uu sii dooran yahay inta kale ay iska yihiin kursi buuxiyaal u buuxinaya madaxweynaha tartamaya sida ay qabaan siyaasiyiinta ka aragti duwan dawladda dhexe ee Soomaaliya booliiska jasiiradda Malta ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in gacanta lagu dhigay ilaa 3 qof oo Soomaali ah kuwaas oo bishii tagtay falxatooyo ka geystay xaafadda Songrog booliiska ayaa waxay tilmaameen 22 bishii Oktoobar qof ka mid ah dadkii dhaca loo geystay kuwaas ku wargeliyay booliiska magaaladaasi inuu la kulmay jirdil iyo xatooyo joogta baaritaanada horudhac ayaa muujinayay in goobta dhaca uu ka dhacay qof joogay ay u suurta gashay inuu qabto mid ka mid ah raggii saddexda ahaa ee Soomaalida ahaa balse kuwii kale ayaa goobta iskaga baxsadeen baaritaano dheeriyo ay booliisku sameeyeen ayay ugu dambeyn waxay gacanta ku lagu soo dhigay ilaa iyo 3 qof oo Soomaali ah kuwaas oo gacanta loo geliyay qaybta la dagaalanka dambiyada waaweyn raggan saddexda ayaa daadoodu u dhaxaysa 26 ilaa 24 sano jir waxaana la filayaa in raggaasi la maxkamadeeyo ay maxkamadda ka soo muuqdaan iyadoona sidoo kale baaritaano dheeriya lagu sii sameyn doono ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in howlgalka military ee ka dhanka maamulka Tigreega loo fulinayo qaabkii loo qorsheeyay sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray in howlgalkan aan la joojin doonin ilaa inta hubka dhigis lagu sameynayo waxa uu ku tilmaamay kooxaha abaabulan ee dambiilayaasha ah
howlgalka waxaa la joojin doonaa markii hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha abaabulan ee dambiilayaasha ah inta dowlad sharci ah gobolka looga soo celinayo isla markaana dambiilayaasha baxsadka ah cadaaladda la horkeenayo ayuu ku yiri qoraalkiisa Abiy Ahmed oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Xaaladda gobolkaasi ayaa aad u kacsan iyadoona halkaasi ciidamo badan la geeyay isku socodka dadka iyo baabuurta ayaa ah mid hakad ku jira kadib markii cabsi xoogan ay dadka shacabka ee halkaasi ku nool ay dareemeen. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa u ogolaaday dacwad oogayaasha inay baaraan qalalaad la sheegay in lagu sameeyay doorashadii madaxtinimada ee ka dhacday dalkaasi Mareykanka. Qalalaadka dhacay ayaa waxaa la sheegay in sarkaal sare oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Mareykanka uu shaqada iskaga tago. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ogolaaday codsi ay u soo gudbiyeen qareennada ka socda madaxweynihii hore ee dalkaasi Trump taasoo la xiriirta in la baaro haddii ay jiraan wax isdabamarin ah oo lagu sameeyay doorashadii dhawaan ka dhacday dalkaasi oo uu ku guuleystay Joe Biden. Madaxweyne Trump ayaa weli diidan inuu aqbalo natiijadii ka soo baxday doorashadii ee uu Joe Biden ku guuleystay, waxaana uu codsaday in baaris lagu sameeyo codadka laga tiriyay gobolada qaar isagoo oo sheegay in codadkaasi qaarkood lagu shubtay dhowr mar. Ayuu waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweynihii hore ee dalkaasi welina ma aqbalin doorashadii lagu doortay madaxweynaha dooran ee haatan ee Joe Biden. Si kastaba ahaatee Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa badankooda aad u soo dhaweeyay madaxweynaha dooran ee Joe Biden, waxaana la filayaa in siyaasadda dalka Mareykanka uu wax badan ka bedelo hogaamiyahan cusub ee dalka Mareykanka. Sidoo kale Trump ayaa isaguna culays siyaasadeed maalmihii ugu dambeeyay uu saarnaa xilli xaaskiisa ay ku andacootay in uu furo saygeeda Donald Trump. Xukuumadda Japan ayaa go'aansatay inay kordhiso howlgalka ciidamada ee la dagaalanka burcadbadeeda ee ku sugan xeebaha Soomaaliya. Japan ayaa u soo dirtay xeebaha Soomaaliya maraakiib diyaarado dagaal oo waardiye ka qabanaya doomaha iyo maraakiibta ganacsi ee xeebaha gobolka ku socdaalaya si ay u ilaaliyaan weerarada suurtagalka ah in uga yimaado kooxaha burcadbadeeda ee Soomaalida iyadoo la raacayo sharciga la dagaalanka burcadbadeeda ee la gaaray 2009 ayaa howlgalka ciidamada Japan ee ku sugan xeebaha Soomaaliya waxa uu ku eg yahay maalinta Khamiista ee toddobaadkani, waxaana hadda lagu kordhiyay muddo sanada. Qoraalkan waqti kordhinta ayaa yimid fadhi saaka ay yeesheen golaha wasiirada Japan oo ay uga hadlayeen arrintaasi kadib markii maalmihii ugu dambeeyay xeebaha dalka Soomaaliya lagu arkayay doomo si qarsoodi u soo galaya, balse arrintan ayaa waxa uu xil saaran tahay ciidamada Japan ee ka howlgala xeebaha dalka Soomaaliya. Saib oo kamid ah siyaasiyiinta uga caansan Falastiiniyiinta ayaa maanta u geeriyooday cudurka dilaaga ee COVID-19 sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Saib oo 65 sano jir ahaa ayaa loola cararay isbitaal ku yaala magaalada Qudus halkaas oo ugu dambeyntii uu maanta ku geeriyooday. Marxuumka ayaa 3 toddobaad ee u dambeeyay ku xanuunsanaa gurigiisa oo ku yaala daanta galbeed ee dalkaasi. Saib ayaa waxa uu ahaa madaxii wada xaajoodka Falastiin u qaabilsanaa wada hadaladii dhexmari jiray Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Muddo ka badan 25 sano ayuu Saib Falastiin ku metelayay wada hadalada aan guuleysan ee uu kula jirto maamulka Yuhuudda ee Israa'iil. Waxa uu sidoo kale ahaa xogayihii guud ee ururka xoreynta ee Falastiin, waxaana uu ka mid ahaa xubnaha ugu firfircoon garabka awoodda leh ee Fatah oo dagaalo adag la galay ciidamada Yuhuudda. Ugu dambeyntiina daawadayaal haddaynu eegno Azerbaijan, Armenia iyo Azerbaijan iyo Ruushka ayaa kala saxeexday heshiis lagu soo afjarayo iska horimaadkii military ee ka dhashay dhulkii lagu muransanaa ee Karabakh. Ra'iisul wasaaraha Armenia ayaa heshiiskaasi waxa uu ugu yeeray mid aad ugu xanuun badan dadkeeda iyo dalkeeda, sida uu sheegay. Waxay timid kadib 6 toddobaad oo dagaal u dhaxeeya Azerbaijan iyo qoomiyada Armenian ah kuwaas oo dhex maray dagaal xoogan. Gobolkan waxa caalami ahaan looga aqoonsan yahay Azerbaijan, laakiin waxa maamulayay qoomiyadaha Armenia
ilaa iyo 1994 sanadkaasi dagaalka ayaa joogsamay laakiin heshiis nabadeed lama saxiixin sanadkaasi tiro heshiisyo xabajoojin ayaa la dhex dhigay tan iyo markii uu dagaalku dib u qarxay bishii September laakiin dhammaantood waa ay fashilmeen heshiisyadaasi oo labada dowladoodba waxaa dhex maray dagaal xoogan oo ay faraha iskaga gubteen maalmihii ugu dambeeyay ayaana waxaa la saadaalinayay in ay xiisadaasi ay kasii dari darto balse arrintaasi ayaa hadda noqotay mid la xaliyay iyadoona heshiiskaasi uu noqday mid xanuun badan ku noqda dowladda Armenia iyadoona sheegtay in Azerbaijan ay la gaareen heshiis wadna xanuun badan iyaga ku ah guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta walwal xiligan waa naga inta fadlan dad nagu cusub tahay channelka subscribe dheh siina share gareysi waxyaabaha halkan soo gelina ay ku soo gaaraan waad ku mahadsantahay daawashada la socodka warkeena